Dowladda Kenya ayaa sii wada dagaalada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-Shabab gaar ahaan gobolada ku xeeran xadka labada wadan u dhaxeeya. Ciidamada Kenya oo ay weheliyaan dabaabado iyo diyaaradaha dagaalka ayaa ku sii saqay xalay magaalada Afmadow oo ay horay u maamuli jireen xarakada al-Shabab. Xarunta difaaca ee magaalada Nairobi war ka soo baxay Talaadada maanta ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay gudaha u sii galeen dalka Soomaaliya in ka badan 120 kiiloomitir. ciidamadeenu waxa ay u dhaqaaqeen magaalada Afmadow xali mana jiraan ilaa hadda wax iska caabina waanu la kulanay sidaasi waxa yiri madaxa howlgallada militariga Kenya Major Emmanuel Jirjir waxa uu intaasi ku daray in kooxda al-Shabaab ay ciidamadooda kala baxayeen magaalada ilaa Isniintii mana jiraan wax dagaal ah oo labada dhinac dhex maray ilaa hadda howlgalladeena ammaanka lagu sugayo waxay u soconayaan sidii loogu talagalay ma jirto wax rabshada oo aan naga hor yimid ilaa xalay ayuu yiri Major Jirjir. weerarka ay Kenya ku qaaday gudaha Soomaaliya waxa uu dhaliyay in xarakada al-Shabaab ay ku hanjamto in weeraro waaweyn oo halis ay ka geysan doonaan bartamaha caasimadda Kenya ee Nairobi. wasiirka difaaca Kenya Yusuf Xaaji ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka xarakada al-Shabaab kadib hanjabaadoodii waxaana uu ku eedeeyay xarakada al-Shabaab in weeraro qorshaysan iyo weliba hanjabaadyaba ay ku hayeen gudaha dalkan Kenya ilaa sanadii 2009. waxa uu cadeeyay Yusuf Xaaji wasiirka difaaca Kenya inay waajib tahay inaad iska dhiciso cadow kasta oo ku soo weerara isla markaana aad kula dagaalanto meesha uu joogo xitaa. You have the right to pursue that enemy through hot pursuit and try to reach wherever he is. 5 isbuuc gudahooda ay xarakada al-Shabaab kaga afduubteen gudaha dalkan Kenya ilaa 4 haween oo European ah mana u dulqaadan karno inay sii socdaan falalkaasi waan wadaynaa dagaalka inta aanu ammaankeena si fiican kaga sugayno ayuu yiri Mr. Xaaji. inkastoo Yusuf Xaaji uu ku eedeeyay xarakada al-Shabaab inay ka dambeeyeen afduubyadii u dambeeyay ee ka dhacay gudaha Kenya haddana kooxdan lala xiriirinayo ururweynaha al-Qaacida waxay beeniyeen in wax lug ay ku lahaayeen falkaasi. wasiirka dalxiiska Kenya Najib Balal oo wadanka dib ugu soo laabtay ayaa isna tilmaamay siday muhiim u tahay in dowladda Kenya ay qaado tilaabo xilligan. have been assured fully that the government is serious, the government is going to act and the government is in control. galitaanka iyo weerarka ciidamada Kenya ay ku sameeyeen gudaha dalka Soomaaliya ayaa imaanaya 5 sano kadib markii sidan oo kale ciidamo Ethiopian ay u galeen gudaha dalka Soomaaliya iyagoo sheegaya inay iska difaacayaan kooxo ammaankooda qalqal ku haya. Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib, Royal 24TV, Nairobi.